بسم الله الرحمن الرحيم. شركي golaha wasiirada ee caadiga ahaa ayaa maanta waxaa shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre. Shirka ayaa looga hadlay arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin arrimaha amniga, oo ka mid yihiin dib u heshiisiintii ama heshiiskii Ahlusunna wal Jamaaca ee Galmudug, shirarkii ka qabsoomay magaalada Muqdisho, iyo muxuu ahaa warbixino laga dhageystay wasiirada qaarkood. ugu horreyntii wasiiru dowlaha amniga xasan macalin iyo wasiir ku-xigeenka cabdinaasir ayaa waxay ka hadleen arrimaha amniga oo ay ka mid ahayd istaraatiijiyadda amniga gudaha ee 2017 ilaa 2022 oo la diyaariyey ahmiyadda ay leedahay, taasoo runtii yoolka saaraysa siyaasadda amniga dalka, saldhigna u tahay qorshaha horumarinta qaranka qayb ka ah, taasoo ku dhisan sidii waddankan siyaasad xasiloon oo degan shaqo kastoo muwaadina u heli lahaa amni isku haleyn karo oo tayeysan, iyo adeeg amni oo waddankao dhan ka hirgala. istaraatiijiyaddaas ayaa golaha wasiirada loo soo bandhigay. wasiir ku-xigeenka cabdinaasir ayaa aad u sharaxay. golaha ayaa dood dheer kadib waxay u codeeyeen in istaraatiijiyaddaas amniga la dhaqangeliyo. sidoo kale wasiiru dowlaha amniga xasan macalin wuxuu ka hadlay sida howlgallada amniga lagu sugayo ee dalkao dhan ka socda, wuxuuna sheegay in afgooye lagu qabtay 2 shabaab ka mid ah oo runtii dil u geystay shacabka deegaankaas. sidoo kalena diinsoor ay gaari cabdibilaaha iyo maleeshiyaadka la socdayba isu soo dhiibeen oo muxuu ahaa ay ku jiraan maanta gacantii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed. intaas kadib wasiirka dhallinyarada khadiija ayaa warbixin waxay ka bixisay tartanka cayaaraha dowlad goboleedyada gobolka banaadir iyo diyaargarowgiisii oo maanta la filayo in daafurkiisii la sameeyo, kaasoo ku yimid wadatashi dheer oo ay wasiiradda iyo wasiirada dowlad goboleedyadaba iyo gobolka banaadirba ay gobollada ku wadatashi ka soo sameeyeen, kanoo ah runtii tallaabooyin la filayo in isdhexgalka bulshada iyo midnimada wadajirka sii xoojiso. sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha wasiir Juxa iyo wasiiru dowlihiisa wehliye labadaba waxay warbixino ka bixiyeen heshiiskii taariikhiga ahaa ee shalay halkan ka dhacay xarunta madaxtooyada oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ra'iisul wasaaruhuba goobjoog ka ahaayeen, halkaasoo ahlusunna wal jamaaca iyo galmudug ku heshiiyeen in awood qaybsiga ay ka wada mid noqdaan dowladda goboleedka galmudug, iyadoo magacii galmudug iyo astaantiba sideeda ahaanayso. madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiye ku-xigeenkana ay ahaanayaan siina joogayaan. waxaa keliya lagu kordhiyey in la sameeyey madaxa xukuumadda oo sheekh shaakir loo magacaabay, taasoo runtii loo arkay in dib u heshiisiintaas ay taariikhina tahay, dowladda federaalkana ay diyaar u tahay dhammaystirkiisii dhowaana la tegi doono dhuusamareeb si loo dhaqangeliyo.